markasta dadka isjecel oo zaa'id isku jecel ya ma dhihi karno weligiisaan la isku jeclaan doonaan waxa la dhahay ma jiro adduunkan wax kasta waa isbedeli karaan tan kalena waxa waaye adoo ninku qabo qof kale ya haddii u dhawaatid saaxiibtinimo caadi ah iskugu dhownahay dhibkee u sheegana iyo waxaaseeti dhibaataday keeni karaan anaka ma ogin laakiin dhibaateenoo keenayaan marka qisadeena cawada intaasay ku saabsan tahay subscribe halii saaro subscribe haddii ii saarti maxaa ka halaaway walaalkee iyo walaashay رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلها ميل كستا جوتين سيتتهين ملا فيعنو الحمد لله أنا قافي عنها wax oo kas caajis ka ahayn markasta waxa jeclaa inta qisayal fi عني nin soo sheego laakiin waa ka caajisa koos mal fiirsanayo an waqtiyan gelinaa waa edit gareynaa waa post gareynaa dan qof saas fiirsanayo male wallahi challenge waay marka waa kase insha Allah waa iga bixin doontiin koos caajis badan waay marka Ilaahay culeyska naga qaado hal isku soo duceeyo marka qisadeena cawada waxa waaye gabar oo Aaron la dhahay hadan America lay waay Aaron la gabartan marka waxay ku soo kortay xaafad Tennessee la dhahay America dhexdeeda marka nin oo John la dhahay school isla dhigan jireen iyagoo yaryar school isla dhigan jireen shanaad iyagoo ilaa ka weynaadaan markii dambe markay kisto high school soo gaareen 16 sano camal oo jireen markaas ay jacayl bilaabeen waliba wiil fiican u ahaa oo John la dhahay aabaheed iyo fasax ka qaatay wuxuu dhahay gabartiina jeclahay inaan la xiriira rabaa markaas ay wiil fiican u ahaa way u ogolaadeen saas isku xiriir jireen markii ay 19 sano gaartay markay ahayd sanadka 2012 bishii 11 is arooseen asiga horta wuxuu ahaa Marine booliska oo dagaaladii loo diro oo ahaa marka waxa u soo baxday inta dagaalkii oo aado marka aroos weyn ma suubsan ilaa play suubsan maxkamadda tagayeen way ismihirsadeen waa iska baxeen marka hooyadeed waxay dhihi jirtay nin oo aaday meeshan oo markasta noloshiina ay kala dheer tahay ilaa dadka oo waxa ka shaqeeyaan dagaaladii aadayaan waxa markasta kula joogaan ma waqtigii la rabaa soo baxa la dhahay way iska baxayaan marka hooyadeed waxay dhihi jirtay ninka noloshiisa ama kugu adkaataa koos kula joogay inta badan oo ka maqan yahay marka waxay ahaayeen dad oo jaceylkooda lagu daysado oo isjecel oo xaafada dhana laga saacaanay ahaayeen dad isku fiican ahaayeen isjecel marka ninkeedu waa baxa marka oo imaana wuu baxa saas ahayd mala joogi jirin marka waxa ku fahmay qisayaasha noocan jaceylka oo lisjecel yahay oo waalid markasta intoo jireen koos qisayaal badan ku aragnay wax la soo kala galay wax la isbedel la imaanay marka adi dadkan si iskugu fiicnaan markii dambe asigoo imaaday markuu imaado waxay bilaabeen kisto muran bilaawday waxa lacag isku dagaalo way bilaabeen lacagta adaa ma yacni u isticmaashid may adiga waay adiga saan yeeshid wax loo baahneen gadaa adaa wax badan gadashadaada badan labadood waa isku qeylinayn marka saas ahaayeen marka maalmaha kamid iyada uurey yeelatay marka uurkii ay yeelatay way faraxday meelay gashay waashay ninkeeda u sheegtay ninka ka sii darnay zaaid u farxeen markaas Facebook la soo dhigay familiadii wixii dhan wixii social media ay qabeen dhan ay dhigeen
uuran leeyahay dhahday way faraxsaneed qayladii iyo wixii oo lacagtii isku dagaali jir dhan waa la hilmaam bes way markaan family noqon rabnaa ay dhaheen marka saasay u faraxsanaayeen markii dambe wax la ogeyn lay soo dagay cunugii waa ka soo halaab miscarriage waa soo ridmo waxaa la dhahay haddana America 10% ilaa 15 naagaha uurka leh waxay ku dhamaataa miscarriage way ka soo dhacaan way ka dilmaanaan leh markii cunugii ka dilmay iyadoo way niyad jabtay shib naagtii qeylinaysay oo faraxsaneed hal mar ay aamustay mana fiicna ogtahay markii oo cunugaaga yar yahay waxaaga waa la qarsadaa markii la dhahay tan camalaa ka mid ah dad kasta meel kasta way ku faafisay iyada waana cunugiina waa dilmay marka cunug ka dilmay iyada way niyad jabtay marka ninkeedii shaqadii loo bedelay haddana meel oo California ay u guureen markay u guureen California markay degeen Tennessee ay degnaan way ka guureen marka California markay degeen daris ay qabeen daris oo nin inaag isqabaan iyo cunugtooda 6 jir ah ee la degeen agtooda marka iyadii ninkeeda markii ay cunug ka soo dilmo kadib tartiib ay u kala dheeraanayeen aday dad isla jooga waana kala dheer ma jiro oo aday isku xirneen ee noqdeen way kala dheeraanayeen tartiib u kala dheeraanayeen marka iyada ninka dariska ahaa wuxuu qabo meel farasaha iyo waxaas oo lagu xanaanayo qabay marka iyada farasaha iyo waxaas way jeclaan jirtay marka meeshii iska tag jirtay ninkaaseti marka waxaa la dhahay Chris la dhahay dariska kan marka ninkii sidii tartiib iskugu soo dhawaadeen hadda ninka waxaa la dhahay wuxuu ahaa nin sheeko badan oo shactaro badan oo maanta hadalkiisa ka dhargeeno ahaay marka iyadana way murugsaneed cunugeeda ka soo dilma marka way niyad jabsaneed marka waxay rabtay qof oo niyad u dhisaday sheekadiisa iska dhageysan jirtay oo iskaga sheekeyn jiray markii iyadana waa isku babateen ninkeeda waa ka dheeraatay ninkii guriga leelisla joogaa mehe waa la kala dheeraaday ninkaas kale u babadatay markii dambe iyagoo isla jiraan adiga dhaxdooda waxaa ka dhacay shumis waxay dhahday Chris-ka dariska joogo in naagtiis Nicole la dhahay gurigeen imaadeen ay dhahday video la fiirsanay marka aniga videoga waa ku caajisay dhahday kora iska kore marka Chris-ka kii la dhahay ninkeedii naagta dariska ninkii qabay naagta dariska ninkii qabay anoo isoo daba kacay dhahday marka si u sheekeysaneen koro iyo imaada si u sheekeysaneen markii dambe waa la shumisa ka dhacay meesha gurigeedu ayaa ninkeeda hoos oo joogaya ninka kale naagtiisa hoos ay fadhisaa waa la shumi marka meesha ka bilowday dhahday xiriirkeeni oo qarsoodida ahay oo ninka dariska la lahay marka sida xiriirkeen u socday naagtiisa ka shakisa ninkii inta ahay naagtiis markay ka shakisay ee aragtay markasta intoo kasii dheeraano iidan oo naag waxay dhahdeen ninkii ama naag lay bartay telefoonka la soo qabtay telefoonka wax badan sir kasta telefoonka laga ogaadaa mogti markii telefoonka soo qabatay telefoonka markay fiirisay waxay aragtay sheeko oo dhaxmartano gabartii dariskiyaasi oo dhahayn haye quruxleedeeda see tahay ma fiican tahay iyo waxaas marka way qaraxday yaa naagtii soo dhaweysan oo cunugteena xataa ku dhaafan jirnay maaba ii jeclaatay maasaan ii yeesh way orod guriga dariska gashay ninkeeda joogay ku dirtay warwaal uu qiyaamooyaa inta fadhim kuu yaalo naagtaada iyo ninkeyga labadeena bana qiyaamooyin dhahda adigana
kow aan kaaga siinaa naagtee dheh kow aan kaaga siinaa waa arki doontaa haddii kow kaaga siin waayo aad way soo oroday marka ninkeedi wooto tuuga wuxuu dhahay bas waay intaana xiriirkeena ku egyahay bas waay marka lama xiriireyno marka la saam yeeleen bas waay marka iyagoo saas dhaheen haddana xiriirkooda hoos ka wateen ma fahanteen hoosay ka wateen ninkii kalena uu iska cafiyey waxay dhahday anaka qof aan la hadlaa waysanaay anaa murugsanaybo wax kalena ma naga dhex dhicin wax saas ma jiro bas waa intaan qaladka aan galan waa ka toobadkeen bas waay mar kale u noqonayay dhahday iyada ninkeeda waa iska cafiyey tanna naagtiis waa iska cafiyey si waa laisla sii joogay waa laiskala dhaafmo waay isdhaafoogahay wax badan ma kasoo wareeganin laba sitimaan markay kasoo wareegatay waxay dhahday uuraa yeeshtay uur labaad markaan laakiin waxay dhahday uurkii hore camal farxadiisa ma jirin koos waxay dhahday cunuga qofkii leh aaba shaki iga galay dhahday shakiya igu jira allah tala igu halaawday dhahday ninkeyga wax ma u sheegin ninkii kalaa u sheeg kriiskii dhahay ani uuraa leeyahay ninkaaga ma u sheegtay ma u sheegin waa ka shakisanaha adiga intii cunugan adi leedaha u maleynaya dhahad uuraa leeyahay saas mi ahaa marka wuxuu dhahay aniga nolosheeda ha iga qasin naagteyda ayaan horaa mar oo gurigay burburi lahay ani hadda waa guuri rabaa beeshaan aan deganahay waa ka tagi rabaa xaafad kale u guuri rabnaa mar dhow ani naagteeda iyo cunugteeda marka nolosheeda ha iga qasin ayaan horaa noloshay mar qasantay hadda waa ii toost mar labaad ma iga qasi kartid oo dheh markaas iyadan waxay dhahday ma jirto ani waa ku jeclahay si aan kuu dhaafi karo ma lahan saan la iskula socon karnaa ma ahe maba ku dhaafi kari ani haddan cunugaagaab carooshay ku jiro meelan kaaga haro ma joogi dhahan marka asiga talaa ku wareertay markaas meelo ku balamiye ii imaawo dheh marka gurigiisa oo kasoo tagayn wuxuu dhahay maanta waxaa u socdaa meelaha oo xabad lagu tuurtuuro duurduurka marka intay aadaan xabado ma tuurayaan oo xayawaanada kusoo ugaarsanaya camal meesha aadaya u dhahe saasoo aaga tagnaagtiis iyada ninkeeda waxay ugu soo tagtay ninkii hooyadii mar dhow soo socotee waxaa usoo gagadaa kusoo baxday marka meeshii duurkii laisla tagay duurkii markii laisla tagay meeshay ku dhex murmeen wuxuu dhahay aniga adig marka iga haraysid maaho markaas meeshuu ku dilay wuxuu ku dhex riday god dheeroo ku dhex riday markaasayti naagti waa la sugale ma soo socoto markaas ninkeeda wuxuu dhahay booliistii oo report garey naagtiisa u baxda ma soo socoto missing person camal qof dhunsan camal ahayd markaasayti waxaa la dhahay intee jirtay waa la raadiyey waa la waayay marka waxaa la dhahay qofka ugu dhow qofka markuu dhinto camal oo mise markii la waayo waxaa la wareystaa marka qofka ugu dhow qof ahaan horta familka laga bilaabaa marka ninka waxaa la dhahay markii oo dadka oo laga shakisan yahay koow oo ahay ninkeeda markaas waxaa la dhahay haye naagtaada marka dadkii oo dariska dhana ku marqaad furaa la dhahay ninkaa meelba iyada keligeedaa baxday ninka maanta dhan uu guriga joogay markaas waxaa la dhahay haye maxaa yaa ku xig marka waxaa la dhahay nin kale oo dariska isjeclaan jireen adiga wixii warkiyaa jirmo isjeclaan jireen haddana ayaamahan waxaaba la sheegaa intay uur leedahay markaas ninkii kalaa loo tagay waa la weydiiyey ani ma is arkin mar dhow ma arkin adi naagtaas maxaa ninka dhexay may ani wax ma booliista waxay ogyihiin ma ogtahay marka ma u sheegooyin marka waxay dhaheen adi naagtaas maxaa ninka dhexay maya ani naagtaas wax managa dhexeynin daris lay ahayn ma aragta ma arkin ani waxaan arkin marka booliisti shakiyaa gale cause ninkaaneti jeceelaa kala dhexeeya asinaha uu diidamahu uu qarsaday markaaseyti
raadiskooda iska sii wateen cadeen ma ku haynin ninkaa ma la xiri karin laakiin waa laga shakisanayay marka raadiskooday wadeen markii raadiskasi u wadeen waxay duurkiyaa la dhex galay waxaa la arkay xarigo oo xarigna ahayn oo adiga xarigo oo weynka oo dadka oo guryaha markay gubtaan iyo oo firefighters la dhahay oo dabdamiska meelaha xarigo ay ku galaan waaweynka ma jiro camalaa la hele markii kaas la hele firefighterna ay makasaysin ninkii dariska kriiskii marka xarigaas qof kasta ma la siiyo qofkii oo shaqeynaya dabdamiska basaa la siiya marka kriiskaa markii oo xarkii la arkay kiyaa la isku qabtay dhiiga ku yaale dhiigii markii oo DNA laga qaaday waxaa caddaad intuu kriis yahay kriiskii saasa sidiyaa lagu xiray marka asina waa qirta markii dambe adi naagta anaa dil waxaan u dilo dhahay nolosheeda ma ka baxayay dhahday anina waxaan rabo dhahay nolosheeda naagta iyo intii oo meesha ka tagno markii iyada la baaran waxaa la ogaadaa la intay uur lahayn marka dadka waxay shaki oo waxaa jiro ninkaanay intay kusoo xirogalisay rabtay intoo aaga tagin leh uurka u sheegaysa ma uurka wax jiro ma aheenaa la dhahay marka asi markii la xiraayay wuxuu ahaay 30 jir kriiskan waxaana lagu xukumay lifetime like inta cimrigiisa ka dhiman oo xabsi ah marka sheekadeena meeshay ku dhamaatay qisadasay aragteen maanta 16 daqiiqo waligay ma gaarin 17 gashay markaan marka intaasay ku eg tahay asxaabay fadlan aniga iyo caajisinina subscribe-ka ii saar haddii intaan soo gaarteen dadka inta soo gaaray waa yar yihiin oo intaan ii soo dulqaadateen ilaahay khayr hanin siiyo dhiirigeliya idinkaa wax nin ku nahay dadkan YouTube leeda dhan oo maanta magac laho adduunka meeshay rabaan kamarooyinka idinkeena ku yihiin subscribe-kiina meel kasta ku taagan yihiin marka idinka wax nin ku nahay subscribe-ka noo saara waan views-kan zaa'id u yaryahay kor ii kiciya waana caajisanahay wallahi ii soo duceeya ilaahay ii fududeeyo waxaan asuubinayo waan jeclahay asxaabta bye bye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه قصة كلا وعجيبة إن شاء الله باي باي.